waxaa magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar soo gaadhay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna qayb ka yihiin wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo mas'uuliyiin kale. waxaa halkaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyay madax ka tirsan dowladda Qatar iyo mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Qatar. madaxweynaha ayaa inta uu joogo waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda ugu sareysa dalka Qatar. waa kan Cabdinuur Maxamed Axmed agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya oo ka warbixinaya. waxaan goordhow soo gaarnay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar halkaas oo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna qayb ka yihiin xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee uga bilaabatay booqasho rasmi ah oo 2 maalmood ah. markii wafdiga madaxweynaha uu ka soo degay garoonka Hamad International waxaa ku soo dhaweeyay madax sare oo ka tirsan dalkan waxaana loo galbiyay meeshii loogu talagalay. wafdiga madaxweynaha ayaa inta ay ku sugan yihiin dalkan waxay wada hadallo la yeelan doonaan amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani halka golaha wasiirada ee madaxweynaha wehelinayana ay kulamo la yeelan doonaan iyo wada hadallo dhigooda golaha wasiirada ee dalkan. waxaa safarkan madaxweynaha ku weheliyay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah Mudane Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka caafimaadka Dr. Fawziya Abikar iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Maryan Aweys Jaamac. waxaan rajaynaynaa inaan sii xoojino xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya dowladaha Qatar iyo Soomaaliya wada hadalladuna ay noqon doonaan insha Allah kuwa miro dhala. dhinaca kale madaxweynaha waxaa booqasho ugu yimid caawa hoteelka uu degan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani. xiriirka Qatar iyo Soomaaliya ayaa ah mid soo jireena iyadoona jaaliyadda ugu horeysay ee Soomaaliya ay timid xilli fog. waxaana xiriirka diblomaasiga ee labada dal la sameeyay markii Qatar ay xorriyadda ka qaadatay Ingiriiska sanadii 1971. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil, magaalada Dooxa.